مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. حديث كشنات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي إن الله تعالى سرية يبسط وفذيا يده قعنتيس بالليل هبينكي بوفذيا ليتوبة سوء أقبله وقد توبة أقبله مسيء النهار مالنتا قال سميها متك قفي مالنتي oo dembigii xumaanta ku dhacay hadduu towba keeno suu ilaahay toobada uga aqbalo wayabsutu wuu fidiyaa haddana yaddahu gacantiisa binnahaari maalintii liyatuuba inuu ka towba aqbalo suu u soo laabtoo looga towba aqbalo musii'u leyli habeenka midka qalad ka dhaca midka musii'a ahee xumeeya habeenkii oo dembi ku xumeeya si looga dhaafo xataa intii tadalluca ay dhalato ashamsu qoraxda min maqhribihaa dhicitaankeeda maqhribka iyo meeshay u dhacdo ilaa ay meeshaa ka soo baxdo ilaahay dembi dhaafkaasuu bixiya toobada wuu ka aqbalaa addoonka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku asaguna bishaaro cadiim ahuu noo tilmaamaya fursad dheer inna la siiyey in rabbigeen subxaanahu wa tacaala uu noo fidinayo baab ama noo furay albaabkii towbada ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisuu fidinaya alla gacan yaan la dhihin baad maqlaysaa ilaahay nebigiisaa ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cid nooga aqoon badanna ma jiro laakiin annaga qalad baannu gelaynaa haddaan gacantaa raaraadino haddaad tashbiihiso haddii taadoo kale ama tu kale aad u miisaasho suu u sheegay u sheeg waad ka gudbaysaa laysa ka midlihi shay wax mahalkiisaa ma jiro maskaxdaada ha ku cabbirin ina allaha tacaala allaha sarreeya waa fidiyaa gacantiisa habeenkii intaa wuxuu u samaynayaa qof waxaa jira maalintii dembi galay xumaan sameeyey kaa inuu towbo keeno uu ilaahay ka towbo aqbaluu doonayaa subxaanahu wa tacaala haddana gacantiisuu maalintii fidinayaa xalay qofkii qaldamay oo dembi galay oo habeenkii xumeeyey dembi macaasi ku xumeeyey suu ilaahay uga towbo aqbalo hadduu soo laabto subxaanahu wa tacaala ilaa goormee waa ilaa qoraxdu meesha ay u dhacdo ay ka soo baxdo laakiin maalintii qoraxi ka soo baxda meeshay u dhacdo towbo kale ma jirto qof laga towbo aqbalayana ma laha.